kabacdi barkaan halka wuxuu joogay waxaan ku soo barbaaray magaalada Burco markii aan weynaaday waxaan u gudbay xamar oo aan doora joogay soo noqodkaygina waxaan joogaa iminka Somaliland de intaas uma ka dhixiyay baan taariikhdayduba taariikhdan de intaas uma yaan joogay dadku isweydiin karaan taariikhda Sooraan waa kuma halkuu fanka ka soo bilaabay goor muu dhashay halkuu joogay marka waa fiican tahay de horta anigu taariikh aan leeyahay oo aan meel marinayo oo aan leeyahay xilligan dhashay iyo markaa ma waxaad leedahay mise barnaamijyadan aan wadno iyo bilowgeedii halkan ka bilownay mise awal halkii aan bal taariikh nololeedkaaga yar oo kooban naga sii warriyo taariikh nololeedka bal horta ninka mutacallinka baa lagu qaatay waayahay bal adigu qayb ka ahay de anigu taariikhdayda goortaan shaqadan horta fanka bilaabay waxay ahayd 79kii waxaan ka mid noqday koox yar oo durdur markii dambe la baxday laakiin markii hore baka kale oo jiray Soomaali abo dabeedna kooxdii markii dambe koox weyn bay noqotay oo durdur bay la baxday dawladda 80nadii ayay noqotay koox soo shacbaxday anu kooxasan ka tirsanaa markaan ka tirsanaa jilaabaan anigu kooxda ka ahaa heesana kama ahayn maalifna kama ahayn xilliyo kamid ah xilliyadunba waxa ila soo kulmay inaan maalif kii gudoomiye ahaa meesha haystay waad samayn kartaa samee wax dabeedna waxaan sameeyay hees yaroo iska gaaban oo nin kooxda ka tirsanaayo saar koonfurka noo qaad jiray baa ka tagay kooxdu iftiin tagayay annaguna markaa waxa kii baa wuxuu yiri waxaad samaysaa dad saar waqooyi sida awgeed waxaan bilaabay hees yeeleeyay la yiraaho marka saar kon la tumaya wuxuu ku wanaagsanaa kilaabadan kooxdu ay markaas baararka waaweyn ay ka tunto heesaha ku wanaagsan saarkaas oo jaanta ama rhythmka la tumaya ayaa ku wanaagsan in lagu ciyaaro sida wuxuu yiri warkaas wuxuu inoo wadi jiray kii koonfurta ah oo inaga tagay kii waqooyiga marka dadkeena ciyaaraha sameyn jiray baa waxa jiray niman yeeleeyay oo dhan jiray oo magaranaysa tii baanana ciyaari barcada waa barcada tii baan ka sameeyay shimaali baa loo dhiibay waa la tumay habeenkii mid kalena isku day inuu igu yiri si habeennimadii marka anigana moraalkii inaan nin wax sameyn kara ahay markaas uu iga dhigay badaninkii markaas la habeen qulu maca abwaan caadi noqon maca abwaan caadi uu suqaatay subaxdii abwaan soo shalay galab ma ahay adoo abwaan uma soo kacday yaan waa ku waabiristay sidii kale waxay noqotay soo degay saarkii duleedo soo degay iyadana shimaali baa qaaday halkaasaan ka soo baxay dabeedna markii dambe adigu waa de fankii iyo wixii jiray baa hore ugu soo gudubtay way isla burbureen wixii baa deehayo wadankii fankii isku dhisnaayay koox ahaan ay waa beri lahaayay heegan lahaayay halgan lahaayay durdur lahaayay jiray ee dhisnaa te way burbureen markii dambe tafaraaraq baa ku dhacay oo midba meel ayuu ka dhacay haye